Crabbies and waffles waa macmacaan laga cuno dalalka kibray ee reer Yurub balse caawa waxaan ka qayb galnay goob lagu cunayo hadda laga bilaabana lagu cuni doono oo magaalada Hargeysa laga furay Crabbies iyo waffles milkshake iced tea ice cafe gelato iyo sharaab khaas ah ayaa laga helayaa goobtan loogu magac daray Crabbies and waffles waxaana goobta ay ku taalo ah magaalada Hargeysa siiba xaafadda Jigjiga yar gaar ahaanna waqooyiga hotel Mansoor lagu qabtay munaasabad xariga lagaga jaray oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Somaliland wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland wasiir ku-xigeenkii hore qorsheynta la taliyaha madaxweyne ku-xigeenka iyo safiirka Somaliland u fadhiya wadanka Kenya iyo gudoomiyaha jaamacadda Golis ganacsato aqoonyahan iyo marti sharaf kale oo dhammaantoodba eeba uga bariyay inuu ganacsigan u barakeeyo ganacsadaha geesta kalena dadkii halkan yimid waxay ka sheekeeyeen dhadhanka macaan ee Crabbies-ka iyo waffles-ka waxa runtii farxad weyn ah inaan halkan imaado oo lagu furayo meherad cusub oo uu mulkiilaheedu yahay Mustafa Saad oo Maxamed Saad marka runtii waan u mubaarageynaa Maxamed waa meherad bilicsan oo qurux badan macmacaan iyo caawis fiican leh runtii farxad weyn bay tahay caawa inaan halkan ka furo meherada anagoo rajayn doona in bulsho weynta ku dhaqan Hargeysa ay ka heli doonaan aad baan ugu faraxsanahay furitaanka meheradan cusub ee Crabbies and waffles waxaana leeyahay mulkiilaha Maxamed Saad waxaad ku soo kordhisay magaalada meherad cusub oo runtii aan hore looga arag waxaan kugu hambalyeynaa fikirka cusub iyo aragtida cusub ee ku soo kordhisay waxaan Ilaahay kaaga baryaynaa inuu Ilaahay ku baarigo oo Ilaahay ka dhigo businesskan mid taaba qaada dhalinyarada iyo bulshooyinka reer Hargeysa ay aad uga heli doonaan Maxamed Saad oo ah mulkiilaha meherada oo ay hareere taagan yihiin afar wiil oo uu dhalay iyo habar wadaagood ayaa iiga waramay ganacsigan uu furay meheradani waa meherad soo kordhinaysa waxyaalo badan oo cusub oo hor leh kulli dadku barigii hore businesska waxa laga ilaalin jiray caruurta marka qolada tujaarta awal barigii hore businessyada waxa ka ilaalin jireen caruurta inaan soo dhaxgalin businesska laakiin waxaan doonaynaa nidaamkii hore nidaam ka duwan inaynu la nimaadno oo dhalinyarta iyagoo junior ay ku barbaaraan businesska dhexdiisa iyo ganacsiga dhexdiisa nimankani waa nimanka meheradan la wareegi doona ugu talagalay inay ka shaqeeyaan oo hawsha wixii imika ka dambeeya aan handover-ka u sameeyo marka Mustafa ugu weyn baa hogaamin doona Mawlid baa ku xiga Mukhtaar Saad Cabdi Fataaxna waa nin ay habradaagiyeen oo isna family oo hawsha isagana inta ugu laxaadka badan la wada marka ganacsiga iyo hawsha aanu doonaynaa inaanu dalka barnaa waxa weeyaan waffleski Crabbies-ki milkshake lemon tea iced tea iyo all milkshakeski oo ah wax dalka ku cusub oo hore loo sameeyay waana markii ugu horeysay Crabbies-ka iyo waffles-ka oo Khalid dhadhansiiyay ayaa ahaa runtii macmacaan iyo dinna oo carab ku jeclaystay macaan